السلام عليكم ورحمة الله جنرال Beatrice اسمان waxaan rabnaa inaan soo dejino inaan sharaxno qaabka ula soo degi lahayd Flutter. Flutter waa framework ay leedahay Google kaasoo loo isticmaalo in lagu dhiso apps-ka oo cross platform apps loo yaqaano oo loo isticmaali karo iOS iyo Android labada loo isticmaali karo sida React Native oo JavaScript framework ah lagu dhiso apps-ka. Marka si aad ula soo degtid browseradaada mid ka rabid aniga hadda waxaan isticmaalayaa Brave waxaa ku qortaa Flutter midka ugu horeeya linkiga ugu horeeya kuu soo baxa ku dhufo flutter.div then waxaad dhahdaa get start marka waxaad doorataa nooca isticmaalaysid ma Windows isticmaalaysaa ma Linux ma Chrome OS marka appka dhisaysid ma web app ma desktop app mise Android ana Android aan rabaa marka wuxuu ku siinayaa hardware requirement waxaa wallahi course-kaada waa inay ahaadaan minimum 4 core recommended-kana waa 8 memory-gana at least 8 GB inuu memory-gaada inuu yahay ama RAM-ka hadda recommended-kana waxaa lagu talin lahaa inuu yahay 16 GB so marka waxaad tagtaa install waxaad dhahdaa Flutter SDK install download version 7 3.727 so desktop-ka iska dhig okay marka waqti ayay qaadan doontaa inuu soo dejiyo fileka hadda waa 998 MB marka file waqtigana si on yani nooga qaadan boost ayaan sii dhahaa so hadda wuu noo soo dejiyey filekii oo Flutter marka labaad requirement-ka labaad waxaan u baahanaa inaan la soo degno version controller loo yaqaana git waa kana ku dhufo let's say git version controller scroll down so get ku dhufo then waxaad dhahdaa download get then waxaad doorataa waxaa isticmaalaysid platformkaada Windows miya ama Linux ama OS so 64 hadduu yahay iyo 32 aniga 64 waaye 64 bit waaye so desktop edit download so asina about waa 65 MB waxay ku xiran tahay internet speed-kaada so muuqaalka sii boost gareysanaa okay marka waxaa kaloo u baahannahay si aan Flutter ayadana Android Studio so hadda wuu noo soo degay get version control keena waxaan dhignay desktop-ka kici marka double click application-ka run garay macnaheeda ka wadaa so next sidaan dhigaynaa then next back waxaa dhahdaa additional icon desktop-ka inuu icon ahaan noo dhigaa rabnaa next marka intaan waxay ka dambeeya next iska dheh ilaa aad ka arkaysa install next install so asagana waa buuxsiinaynaa okay wuu noo soo degay finish browserkaanu ku geynaa iska xir kam waxaa imaataa this PC program files then program fileska oo 64-ka waxaa fiirsaa get marka ku dhufatid din ku dhufo waxaad ku dhigaysaa meeshaan mataa window taskbar-kaada waxaad ku qortaa edit environment then waxaad dhahdaa edit variable so go to the path edit deh then kaas asaan noogu soo daray new path deh filekaas asaan noogu soo daray program files get cmd then hadda linkiga ay ku paste gareey macnaha okay then iska close gareey then waxaad tagtaa cmd waxaad dhahdaa get version get hyphen version so marka wuxuu kuu sheegi doonaa inuu version kugu jiro hadduu version kuu sheegin macnaheeda kuguma jiro waa git marka labaad waxaan rabnaa inaan SDK-geena yani ku shubno then file oo zip uu ku jiraa waxaan dhahdaa extract right click extract
extract Flutter. So extractiga iyadana waqtiga qaadanaya oo buusinayna oo uu buuxiyey. Then waxaad tagtaa fileka waa kaasaa oo Flutter. Then kan waxaa leenahay cut soo gad garay ama copy garay labadaba waa isticmaali kartaa. Soo gad garay waxaa imaataa local c-daada. Then waxaa abuurtaa folder loo yaqaano src macnaheeda oo yani sdk lagu shubi doono hadhow yani si Flutter loogu ran karay. This is sdk. Then paste ku dheh folderkii hadda. Okay. Then wuu noogu shubay. Waxaad gashaa fileka double click ku dheh. Waxaad tagtaa bin. Then soo copy garay pathkan soo copy garay asna. Sidoo kale haddana waxaad tagtaa taskbarka waxaad dhahdaa edit system variables, system environment, then edit environment variable, then path, then new path, then pathka hadda awato paste ku dheh. Okay, okay. Okay. Then waxaa soo furtaa cmd ga soo fur. Then meeshaas waxaa ku qortaa Flutter doctor ama Flutter waa ku qori kartaa labadaba midka rabtid. Kan wuxuu ku xaqiijinayaa inuu Flutter si sax ah computerka kugu shumay. Waa kaasaa Flutter, welcome to Flutter SDK, Flutter div. Okay. Waqtiga qaadanaya yani inuu ran gareeyo. So marka uu noo ran gareeyey hadda Android Studio kuma jiro uu leeyahay oo Flutter uu kugu jira version control uu kugu jira oo ah git. Then waxaa kaa maqan Android Studio oo ama Visual Studio labadaba waa isticmaali kartaa. Dadka arta isticmaali kartaa Visual Studio ama Android Studio. So marka waxaan rabnaa hadda inaan soo dejino Android Studio. Let's close it. Come here. Waa kuwana Visual Studio digsi kartaa IntelliJ iyo Android Studio. Marka anaga waxaan rabnaa Android Studio. Click Android Studio. So marka waxaan leenahay install Android Studio. Marka shaashadan ku keeni doona install asana wuxuu leeyahay recommendation or requirement ramkaadu waa inuu 8 yahay 64 bit window at least Microsoft Windows 8 inuu kugu jiro ramkaadana waa inuu 8 ahaadaa minimum. So download Android Studio Ladybug. Scroll down. So just start I have agree then download it. Okay. Download is kidik. Then asna waa 1.1 GB waqti qaadan doontaa inuu soo dego. So let's pause the video. Waqti yani videogan u dheeranahay hadii kale. Saad uu noo soo degay Android Studio. Okay. Come to the downloads. I can Android Studio version 2024. Okay, rangrey waqti ay qaadan doontaa. Please wait the setup loading. So next. Sidoo noo dhigay. Arma Android Studio yes. No ship. Hit next. Finish. So kaca wax yar usug. I don't send the dimension. Okay. Waqti ay qaadan doontaa isla component yani inuu ku buuxiyo. Okay. So next day markaad standard rabaa next. Waa marka fileskan oo SDK gan ay kugu shubi doonaa emulatorka oo 400 Android SDK pool. Marka waxaa dhahdaa next. Okay. Waxaa leedahay accepted meeshan Android SDK license iyo labadan accepted then finish day. So waxaa sugi doonaa ilaa uu ka buuxsamayo linkan waqtina qaadan doontaa. Let's pause the video. Then wuu noo dhameeyey. Marka iska sug adig ilaa intuu kaaga dhameynay finish day. So marka koowaad shaashadan ku soo bixi doonta pluginskaas meesha pluginska tag waxaa soo degsataa Flutter soo degso plugin loo yaqaano Flutter install. Marka wuxuu ka caasan doonaa inaad soo bilowdid
restart ada dheh, yani dib ayuu Android Studio u damaa uu soo daaraa. Then markuu soo daaro meesha waxaa kaaga soo bixi doonto a new Flutter project. Marka SDK-gana tag SDK manager-ka waxaad tagtaa yani SDK toolska waxaad jagta saartaa horta command line-ka Android SDK latest version command line. Waxaa kaloo jagta saaraysaa Google Play License Library iyo Google Play Surface iyo Google Repository iyo USB driver iyo Google Web Driver. Okay dheh, apply okay. Intaan uu kusoo dejin doonaa intaan version. Then waqti ay qaadan doontaa inuu kusoo dejiyo ayana finish dheh. Then marka waxaa dhihi doonaa new Flutter. Marka waxaad doorataa marka Flutter SDK path-ka sheeg. SDK path-kaada ku xiranta haddii aad dhigtay C-da aad folder u sameynin meesha aad dhigtay aad sheegi doontaa. Ani hadda waxaan dhigay C-da waxaan u sameeyey folder la dhaho src Flutter. Kaas waa marka path-ka uu u baahan yahay SDK-ga meesha laga soo akhrinayo. And next magaca la bax, let's say first project create name. So shaashadan noo soo bixi doonto marka koowaad iska kala creators. Okay, this is okay. Koodkan meesha ku qoranna waxaa iska leh shirkadda Flutter oo ah kood hore lagugu sii diyaariyey, macnaha aad rangareyn kartid, macnaha aad arki kartid siduu yani u muuqan doono. Marka waxaad tagtaa meeshan emulatorska laga controlo, waxaa kusoo darsan kartaa emulator kale meesha marka install HMX-kan isna waxaad dhahdaa emulator performance-giisa waxaad ka dhigataa at least 8GB oo kale haddii yani uu yar yahay computerkaada. Minimum recommended waxaa lagaa rabaa 4GB, adiga 8GB ugu yar. Marka uu kusoo dego finish dheh. Then emulatorka kusoo kici doono marka koodka meesha ku qoran aan rangareyn doona. Marka emulatorkaada waxaad iska fiirsaa macnaha meesha macnaha kore inuu kuu dooran yahay emulatorkaada namekiisa, macnaha haddii uu yahay pixel 8 pixel 7 meeshaas yani kore mobilka anaad waxaa ii rangareysan pixel 7 pro API. Marka iska fiiri, marka haddii aad weysid waxaa la dhihi kartaa refresh aad dhihi kartaa ama waxaad dooran kartaa emulatorskaas oo ah virtual mobile waaye. Noo rangarey koodka. Waxaan warning-kan ku siinaya maaha error, iska sug. Marka koowaad waqtiga qaadan doontaa ani hadda waa boobsiyey. Marka Flutter waa kaasaa qaabka ugu shuban lahayd oo emulator ula soo degi lahayd. Waa kaasaa. I hope this video inuu ku anfacay. Marka waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Noo subscribe noo like garee na soo follow garee. Waa ku mahadsantahay daawashada.